TV-ga in aad runtii nagala qayb qaataan beritoole oo dhici doona shir runtii muhiima oo weyn oo runtii aadna u qoseeya dumarka degan gobolka Minnesota maadaama ay runtii gabar Soomaaliyeed ay tiri aniga ayaa u istaagay dumarka in runtii xuquuqdooda aan u hadlo ama markaasi aan u doodo hadday noqoleed kuwa degan Soomaaliya iyo kuwa dibadaba gabadhaas runtii deganeed qurbaha runtii Soomaaliyana ku dhalatay ayaan runtii noogu timid studio kana timid magaalada Columbus, Ohio. gabadhaas magaalada waxaa leedahay Cobra Case Jamac runtii way deganaan jirtay gobolka Minnesota ka bacdina waxay u guurtay Ohio haatana waxay tiri anigu waxaan u guurayaa Soomaaliya oo waxaan doonayaa dhibta Soomaaliya in aan runtii kala qayb qaato dadka iyaga haddaba si kasta ahaatee Cobra Case Jamac waxa ay shir weyn ku leedahay gobolka Minnesota gaar ahaan magaalada Southka Minneapolis Cedar iyo Lake meesha iska gooyaan hulka weyn ee lagu magacaabo Taj Mahal Mall ayay runtii xafladaas weyn ay ku leedahay oo runtii kaga hadli doonta barnaamijkeeda iyo waxa ay ugu tala gashay haatana runtii ku soo dhaweey studio-ga Cobra. Thank you. Cobra sida nagu maqaala ama sida flyerada aan ku aragnay waxa runtii aad isku sharaxaysaa jagada gudoomiyaha ee baarlamaanka ee Puntland jagadaasi runtii aad tiri waxaan u istaagayaa first woman candidate oo speaker noqota oo Soomaaliya oo jagadaas runtii qabatay maadaama ay niman badan ay soo qabteen runtii 10 sano ee Puntland ay jirtay bal xogaa yar nooga taabo anoo og inaad runtii programka aad ka hadli doontid qaybtiisa badan tomorrow balse xogaa naga sii dumar ahaan sidaad ku soo dhiiratay boos ay rag u haysteen inaad ka qaado xagee iga wareysanaysaa meelo badan baan anigu diyaar u ahay inaan ka hadle qaybtee booskan maxaa kugu kalifay inaad booskan waxaa igu kalifay inaan isu soo sharaxo waxaan arkay in muddo aad u badan wadankii Soomaaliyeed oo burbursanaa intaana ay isku ceyrsanayeen ragga Soomaaliyeed oo ay waxba isu ogolaan waayeen marka aad baan waxaan u jeclahay inaan dadka Soomaaliyeed special waayeelka iyo caruurta iyo dumarka inaan wax u qabto marka qofku waxba ma qaban karo hadii uusan madax ahayn ama aan laga haybadaysanaynin marka saasa igu kaliftay in aan wadankaygii waqti badan anoo ka soo maqnaa aan dib ugu noqdo oo aan maaragtay aan wax u qabto wadankii waan gartay dadweynaha Britoole chance ku helay in xafladaada ay yimaadaan maxaad u malayn doontaa khudbadaada inaad ku jeedin doonto waxyaalaha aad ku soo qaadan doontaa dhinaca caafimaadka education qaybteeba u badnaan doontaa ma dhinaca dumarka ma dhinaca caruurta ma dhinaca ragga khudbadaada dhinacayba u badnaan doontaa way kulata wallahi qofku haduu maaragtay ninba wuxuu tagay Sacuudiga waa gartay markuu adigu Soomaaliya qaybo kamid ah buu ka tagay waa gartay marka wuxuu arkay wax badan oo reerkiisa u baahnaa Sacuudiga markaas wuxuu yiri wallahi waxaan ahayaa wax walba oo aan reerkayagu u baahnaa halkani way yaalaan marka maba garan karo meel aan ku idhaahdo halkaas baa Soomaaliya wax qabasho u baahan Soomaaliya markii laga bilaabo xayawaanka oo xoolaha la maxay tahay aynu isticmaalo kamida ama ugaadha oo hadda inaga soo carartay oo Kenya u soo gashay sidii xabad loogu waday caruurta dumarka waayeelka ninka Soomaaliyeed ee xabadda sita mooyaane wax kasta oo Soomaaliya jooga caawimaad bay u baahan yihiin waa gartay aad baad u maasan tahay haddaad ka soo qaado Puntland hadda waxaa jira burcad badeedyo badan oo ka jira dhaqaalihii waxaad moodaa inuu hoos u dhacay in nabadgelyada laftigooda ay qiiqil ku jirto arrimahaas oo dhan ma waxay kula tahay inay markan dumarku u istaagi karaan wax ka qabtaan waxay ila tahay inay u istaagi karaan waxna ay ka qaban karaan anaga oo la kaashanayna ragayaga markaan ku leeyahay ragayaga dad badan baa waxay u arkaan inaan ragga against ku ahay laakiin ma ku ihi ragga against sababta oo ah aniga nin baa i dhalay uu isoo barbaariyay nin baan la dhashay nin baa i guursaday oo wiil baan u dhalay all those iyo kuwa kasii badanba nin la'aantii ma socon karno laakiin anaga oo la kaashanayna ragayaga oo u sheegayna inay xabadda iska dhigaan oo nabadgelyo wadanka ka dhaliyaan gabdhaha Soomaaliyeed waxbay qaban karaan waliba wax weyn bay qaban karaan gabdhaha Soomaaliyeed la'aantoodna wadanku ma soconayo runtii qaxi baynu ku baraarugnay oo gabdhuhu wax badan ay qabteen marka way ka qaban karaan questionkaadi weydiisay waxa weey ma ka qaban karaan yes they can do waa gartay adigoo aad u mahadsan waqtigan ugu yar yahay gabagabadii su'aashan hadaan ku weydiiyo sida ogtahay Puntland waxa jiray in ay ku soo duushay Somaliland oo dhul ay ka qabsatay arinta iyada ah xageebad isleedahay wax waad ka qaban kartaa ma nabadgelyada wax ka qaban kartaa mise waxa isleedahay Puntland dagaal bay u baahan tahay inay gasho oo dhulka ay ku soo ceshato
sidee arrinta u wajahaysa haddii aad noqoto gudoomiyaha baarlamaanka okay waa question fiican baad weydiisay waad mahadsan tahay horta Puntland iyo Somaliland waa dad Soomaaliyeed waa dad walaala ah anigu marna ma oranayo dagaal ha lagu qaado meel dagaal waa ka soo horjeeda waxa because intii rag naga dhimatay rag kale inuu naga dhinto ma rabo anigu xiriir baan la yeelanayaa Somaliland Puntland iyo kuwa kalaba waxaan rabaa ragga Soomaaliyeed inaan dhexdooda nabadgelyo ka dhaliyo oo gabdhuhu waliba u kacaan aniga oo international TV fadhiya waxaan u sheegayaa ragga Soomaaliyeed inay xabadda iska dhigaan yes kuwa badanna waan la xiriiray waxna waan ka qabanayaa laakiin dagaalka gama qabanayo laano laascaanood waxay tahay Soomaaliya marka Somaliland weerarka ay ku soo qaaday ma qurux badna laakiin haddana waxa ka dambeeya dadka ka dambeeya wada hadal baa jira waa la wada hadli karaa dadkuna af Soomaali way isku afkartaan waxaan u maleynayaa sheekadaas hadii wanaag lagu dhaxgalo ila dhameyn karo waana dhameynayna aad baad maasantay sida aad ogtahay Puntland waxay dhashay dawladda federaalka waxa la marmarka qaar af English lagu yiraahdo the mother of federal government waa Puntland hadii aad gudoomiyaha baarlamaanka noqoto wali ma saboor gareynaysaa federaalkii mise waxaad leedahay Puntland markan kaliya focus ka saarayna walaasku waxaan saaraynaa Puntland kaliya mise wali waa saboor gareynaysaa federaalka maya waa saboorti gareynaynaa federaalka madaxweynaha waa saboorti gareynaynaa wax kasta oo wadanka nabadgelyo ka dhalinaya diyaar baanu u nahay inaan saboorti gareyno marka ma saboorti gareynaysaa weeye kuweeshinkaagu yes waa saboorti gareynaynaa dawladda waana jecelahay in Soomaaliya ay nabadgelyo ka dhalato meel kastaba magacay doontaa isku magacawdo dadku waa Soomaali aad baad u maasan tahay dhinaca kale shidaalka hadaan maadaama time si helay dhinaca shidaalka hadaan u soo noqono shidaalkan laga qoday Puntland ma isleedahay waa laga gaarayaa guul of course waa laga gaarayaa guul waana laga gaarayaa insha Allah waa ku rajo weynahay wayna socotaa shaqadu aad baad u maasan tahay runtii haddii aad doonaysid more inaad ogaatid runtii Cobra Case jaamac Britol ay ka hadlaysaa 327 xafladda quruxda badan ee Britol lagu diyaariyay magaalada Minneapolis iyadoo isku soo istaagtay inay noqoto gudoomiyaha baarlamaanka ee Puntland gabagabadii maxaad kula talinaysaa gabdhaha Soomaaliyeed ee maanta ku daawanaya dhammaan Soomaalida degan gobolka Minnesota inay xafladdaada yimaadaan inay xafladdaada ka qayb qaataan maxaad kula talin lahayd waxaan kula talin lahaa gabdhaha yaga Soomaaliyeed horta waad mahadsantihiin qoliyinka wiilasha halkan ugu soo casmay waxaan gabdhaha yaga u sheegayaa inay aad iyo aad ay maaragtay wadanka sida ay ugu maaragtay wanaaga ugu sameynayaan inay u sii istaagaan oo strong more ay noqdaan oo ay wax ka qabtaan wadanka raggana ay heshiisiyaan oo dhex galaan ragga ishaya gabdhaha dhalay gabdhaha la dhasheen waa in arinta aanu dhamayno oo aanu kuligayo iska aragno وهجاج أد بعض ما صنتاي فضلا كسوق قبل بريتو الحفلة ده قروح بدن لو قبل دونا سيدر يلاق ماشي إسكا جويان ومولك عصب اللي جمع عبد سيدي ماركت أما هولك كل حياله اللي هذا تاج محل مول رنتي كسوق قبل وصدق ده قلنا ما إلا يتضبط أي هالكسوق بدن قروح بدن ده كسوق جد دونا أي برنامج كوساب سنرنتي بدميها برنامج كويس تاجن هوين كصومالية رنتي ولا شيء بدن كصومالية أد بعض ما صنتاي ما تكلمتوا. Thank you very much.